miyaanaad ka cabsanayn ugu yaraan maalin ilmaha yar markuu banka qiyaama la joojiyo timihiisa isla markiiba caddaan isku bedeli doonaan yawma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh waa maalin wejiyada qaarna ay iftiimayaan baa ilaahay yidhi qaarna wejiyadu ay madoobaanayaan yawma yafiru almaru min akhiihi waa maalinta qofku hooyadii walaalkii ubadkii xaaskii ay kala baxsan doonaan maanta waa laysku yaacayaa adduunyada waa laysku yaacayaa hadday dhibaata timaado dadku dhibaatada maanta waa iska kaalmaysanayaan nin walba kii halka jooga dadkiisii waxbuu u dirayaa laakiin qiyaamaha cidna cid wax u diri mayso hooyadaadii macaanayd ee ku dhashay haddii la yidhaahdo miisaanka ayaa lagu hayaayo hal xasana ayaa ka dhiman ee sii hadday xasanaysa jannay galaysaa qof kasti wuxuu leeyahay maalintaa may ilaa naftayda jannahan ku hubsanaya cid maaqaana buu leeyahay yawma laa tamliku nafsun linafsin shay'a walamru yawmaydin lilah yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim bale yawma laa yajzi waalidun can waladihi waa maalinta waalidku ilmihiisa wax u qaban karayn cunuguna aabbihi waxba u qaban karayn qur-aanku maalinta aad buu uga warramay laakiin ayaa maanta kuwaan toobaya iyaase waru hayaba warkana ayuuba saameeyeyba maanta dadka zamankan adduunyadana la weyn dadkii qalbigooga iftiinku galayna aakhirada la weynaatay aakhiradii markay weyneeyeenna noloshii adduunyada waa u dhib yaraatay raaxadii adduunyada oo ifka u soo baxday maxay tahay adduunyadu cish maa shi'ta fa innaka mayit jibriil baa u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi intaad doontaba noolow kii dhinta un baa tee qorshaha ku darso wacmal maa shi'ta fa innaka majziyun bihi camalkaad doontana la imo waa laga abaalmarin doonaa qiyaamahiisa ogow waxbin man shi'ta fa innaka mufaariquhu ciddaad doontana jeclow adigay ciddaad isjeceshahayna mawdkan i kala geyn doonee caalamkana ku noolahay marka loo eego cawaalimta ka dambaysa caalamkan adduunyadu wuxuu noqonayaa dhibic marka loo eego cawaalimta dambaysa caalamu dunya waa 60 sano 70 sano caalamulbarzakh ayaa ka badan caalamka adduunyada dadkii zamankii nebi aadan dhintay ilaa joogadeenna caalamkaasay ku jiraan qolana way ku cadaaban tahay qolana way ku raaxaysanaysaa waa loogu janneeyey alqabru ima rawdatu min riyaadi aljanna wa ima xufratu min xufari naar buu nebigu yidhi qabrigu laba mid buu noqonayaa ama beerbeeraha jannada ka miduu qofka u noqonayaa ama godgodadka naarta ka miduu u noqonayaa sayidina cusmaan radia allahu canhu mar alle markuu qubuuraha yimaada lilmadaa ka daadanaysay waxaa la yidhi cusmaanow janniya naar marka laga sheekeey ma oydide qabriga maxaad loo oydaa markaad aragto wuxuu yidhi qabrigu waxaan ka maqlay nebiga oo leh calayhi salaatu wasalaam qabrigu waa guriga guryaha aakhiro ugu horreeya hadduu qofku halkaa ku nabad galo nabadgelyo ayaa u dambaysa hadduu halkaa ku cadaabo ku khasaarana khasaarihii weynaa buu u gudbayaa buu yidhi dhegayso oo faham gabadhay walaasheeda muslimadday zamankaa dadku siday qur-aanka ugu xidhnaayeen eeg rag iyo dumar maantana maxaa lagu xidhan yahay maanta iimaanku waa maxay takdiibun binnadar wa tasdiiqun bilkhabar waxay naf ishu arkaysoo dhan beenee wax samada ka yimidee warana rumee hada huwa aliimaan qur-aanka iyo xadiiska rumee warkoogana qaado wixii labadaa ka baxsanna ha yeelin maxaa yeelay waa been waxba kama soconayaan labadaasunbaa dhaba labadaa warkooga inaad qaadatana farad bay kugu tahay dadkii markay warkaa qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyada maxay tahay ba walaalayaal maxaa la iskugu daalinba qadra daruura adduunyada ka isticmaal ha dhex degin guri bilaa musqula ma dhici karto laakiin musqusha la dhex seexan maayo markay xaaja ku qabato unbaad gali waad ka soo bixi haddii uu yidhaahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yidhaha musqushaan dhex seexanaya maxaa la odhanayaa adduunyadu waa caynka haddii uu yidhahdo qofku tanun baan aqaanaa tii dambe ma aqaana ee qorshahayga way ka baxday tanun baan aqaanaa hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas in la dabiibu u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga le musqusha uu isticmaalo adduunyada u isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado
قدر الضرورة. ماشي أدوسعة وآخرة ويان هايلو منها هالمامن تكليا أنكو بدادين وامحي حفاظة إنه هيكو جرتا وإنكو إلهي دين كيسا كشغي رقي ضمر ومدن وحو كغتغي النبي عليه الصلاة والسلام منهج كو كغتغي وامحي صدح شيء زمنك النبي ومد وي وضل هايد علمي يا عمل يا دعوة صدح دا زمنك النبي ومد وي وضل هايد ننكستو صحابية قبر كستو صحابية دا وحي هايين عالما بدينهم دين تودوي يقانين عاملا بدينهم دين تودن ويكو عمل فليين داعيا إلى دينهم دين تودن ومد ويكو باقيين العلم والعمل والدعوة صدح داس وحي كسو بحين منبعي مساجد النبي عليه الصلاة والسلام كمتك النبي أمد مارك تاني الدنيا كوها مونيسا كمتك عالم كيوحو كمتك أمد آخرته أي لو ينتهي أو دينته أي لو ينتهي أو إيمانك لو ينتهي أو أصلا نمدو أي لو ينتهي عقبة بن نافع مدينة كدغاغي مصر بو يمدي ليبيا يو يمدي محيط الأطلس مغرب انتو استاغي زمن كان دلك واغا زمن كا دلك ناجوغن لما قونين فرسك انتو بدق اليبو يري يا ربي لو علمت وراء هذا البحر أناس لبلغت عليهم لا إله إلا الله يا ربي هدا نوغهي بدا دديني كش شيام لا إله إلا الله بانقرسين لها بو يري ألا نرجع إلى المدينة حتى نكون نغنيا دلك يجي مدينة محانو نغنيا لأن الأرض انتهت لأن دلك بعد ما دي بود حدي تول وعلي فرسكي جزائر بو مركا كود انتهال كاس لغواس مدينة كبر باري عكاشة رضي الله عنه ري مدينة أيوها وعكواسيها السودان أبا أيوب الأنصاري ري مدينة أيوها اسطنبول بكواسيها أبي وقاص ري مدينة أيوها سين بكواسيها عبد الرحمن الغافقي ري دمشق بوها فرنس بكواسيها بلال ريب مدينة ريب مكوها وعكواسيها دمشق كم من الصحابة عالم كواس كم مسلمين هذلك ما أنت كواس لكن هدفك أصحابته السعودان يا هدفك مسلمين ما أنت السعودان والله بقى نسلهين وسكوت وين ويا سامحة وسط وحبا يقول قبلنا هدفك السعودان يكو يا هدف كان ما أنت السعودان اسكو مدة ولا ليال لذلك وين النية نبدلنا ذلك النية دام كوي مني وين نبدلنا وين نبدلنا وإلا عديك الخطر بكجرنا نيدين وان بدلينا محانو بدلينا إن ندلك نجوغنو لكن عن دينتا إلهي كشغينو ونقبلونا شغادة دينتا مسلمين تيور دلك انت مدمي أو يدتك يمد دلك أين هم أنت انت سوق ليس مسكيتك أكو فرحين زيارات كبح جولة دبح راع جماعة الله دي بدو بح واديابي دون تاي تستغرب هي أوصى بحايا إنك هالك النبي قال عليه الصلاة والسلام من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا أبو النبي يقول فليس منهم نيجا مسلمين تدباتو ذا كول ولي كم مرقون نجا من محبود عنك أما مسلمين تبا كم من مح دباتو ذا وقوين الإسلام كايس توا معي بعدوا عن الدين دباتو ذا كوين ودباتو ذا إلهي ولا قفوا قاعد دباتو ذا كوين الله ينفهمسي دين يد ما بدل الله هذا دين الكريم في بيتك bishaaro wishay haddii barashada qur'aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada qur'aanka iyo culumta islaamka duruusta sida taxanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur'aanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka qur'aanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada ku